الله إن كويتيو مدحويني ودن كأياته dadka runtii ama qurbaha joogan ama gudaha joogan waxa jirtay toddobaadii la soo dhaafay hadal hayn aad u tiro badan oo ay dadku isla dhex marayeen markii ceel cadde dagaalkii amisom shabaab ku qaaday diyaarado ay dadkii duqeeyeen dad badan laayeen dagaal jasiiro la weeraray oo meyd badan yaalay ayaa maxaad u tagtay tacsi maxaad u tagtay wadanka Kenya qaabkii markaas aad u dhaqantay dadku wax badan bay ka keeneen fanaaniin baa heesa ka keenay marka siday arintaas ku dhacday iyo sidaad u aragtay iyadoo meyd uu yaalo wadankii in kuwa shisheeye aad u tagto sidee kugu muuqataa sideese dareenka kaa soo gaaray dadka aad u arkaysa horta sidaa u dhigtay xasan anigu uma dhigi lahayn shisheeyaha dalalkooda waa ku dhintaan umana tagno tacsiintoodana ma tagno markii 180 iyo jarjar ama 200 in ku dhow oo wiil oo Soomaaliya loo soo diray oo sababta loogu soo diray Soomaaliya inay nabad ka keenaan ku saacidaan dadka Soomaaliyeed nabad inay helaan ay ahayd hal subax la dilo hawl caadi ah iyo dad ajaanib ah dhintay iyo ma waxa soo haray marka dadkoodii waxay ku qanceen dagaal lagu jiray wixii yani collateral effect ama waxa dagaalka oo asbaabta dagaalka oo keeno aan la jeclaysan ayay kamid ahayd wiilashoodii inay dhintaan ay dhamaadaan goobtii dagaalka marka annagana hadii dad nooga dhintay dadkaasi abriyaha ahaadaan oo dad shacab ha ahaadaan ama ciidan dagaalamay ha ahaadaan ayaduna waa waxa aan la jeclaysan ama aan lagu talagalin ama aan la rabin ee dagaaladu ay keenaan marka mar walba hadii dagaal lagu jiro maalin walba waxa aad rabto iyo sida aad wax u rabto kaliya uma dhacaan marar badan dhacayaan in oo si aanan jeclaysan iyo si aanan rabin iyo si aan raali ka ahayn ay wax u dhacaan dalkeenu waa dalkeena adawguna annaguna haystaa wuuna dilayaa maalin walba marka taasi waxaan u malaynayaa waxa ugu muhiimsan waxa tahay cadawga inaan dalka isaga kicino laakiin waxaan waa inaad dhooftay oo aad dibadda tagtay oo iyadoo meydkii labada qayboodba uu yaalo dadka ay qaylinayaan inaad dhooftay oo aad xag aad u tagtay Nairobi inaad ciidamaad u tagtay yaa u tagi lahay ma waxa ka fiicneed inaan dhahno qaata muxuu ahay meydadkiina meesha rabtiin ka dhaca miyaa ku habooneed annagu caalamka ka midnahay siyaasadan wadnaa dad 20,000 oo wiil oo aan Soomaaliya u dhalan Soomaaliya aan siyaasad ka rabin Soomaaliya aan wax kale oo maslaxad ay ku qabaan ka rabaan aan jirin yaa ku dhinto dhowr kunna waa ku dhimatay waxaan isleeyahay dalka Kenya iyo dawladda Kenya iyo shacabka Kenya intaas ka badan ay laga mudan